marka caawa waxaan ka mahad celinaynaa inaad soo ajiibteen codsigayga ahaa inaad martiqaadkaan idin fidinay oo ahaa inaad nagala soo qayb gashaan barnaamijka waxaa mahad iskale allihii suurtageliyey inaanu barnaamijka quruxda badan caawa aynu halkan ku wada kulanno waxaa sidoo kale mahad iskale xildhibaan Bashiir oo codsigii aan u jeedinay naga qaabilay runtii waxaan ku leenahay xildhibaan geesinimadaas inaad bulshada la kulanto in soo fadhiisato dooda caawa aan wada qaadano هذا صورة قليل هذا بنكون ماد عليا حتى أنا كهذا أقسمها جود معد كهيتد معد كهيتد وح أساسي دنيا الصوماليات كل شجع دجاجنا الصومالية يو ذلك دبدي السبب يجو ميودو أحيد إن يبلشوا ذا دور موضة أو أي كبدل كران أما دور كيبلشوا ذا كوي لان كران إن يبلشوا دور كوي عشان ميودو واحد أحيد كدور متعلم الصومالي هان كدور هالأبو الصومالي هان كدور أرض الصومالي هان أنت بمحينه كبدل كرنا بلشدنا محينه كوسو كردين كرنا ما عندكم حوجة سارية أو فوق السجرية تريندا أو توبرة إنه ما عندكم توبرة فكتفة أو بلشدي واحد بدل كرا أو قفك قاعدة توبرك ما عند كرا كنتي خمرات بدن يواحد بدن وكلنا وسيادينية marka waxa kale macadku xooga saara doodo noocan kala waxaan filayaa doodani koowaad aynu ku kulano warjani insha Allah inuu ku kulano doodo badan iyo madal badan oo qurxoon marka doodahaas in xooga saara doona si bulshadii aynu fikirkii aynu doodihii suuqa yaalay aynu inta soo kaxayno keeno goobo lagu tala galay bulshadii fikir ku doodo aragti ku doodo marka si loo helo bulsho horumarkii iyo higsigii isku dhan u jeeda oo wax wada qaadan kara horta muhiim ma aha caawa سؤال ونين عد ويدينه وحلبانك سؤال كبادينه هيمد وين نتلصين كرنا حلبانك تسالسين كرنا طريق وحكوها كرا أما فكرة كوسو كردين كرنا أنت أصو فكرة بس كويمي أنت أصو أركتي أنت أصو دلنا يراء أنت أصو دلنا يراء وتشهي سن إني بروتو بالشو ده يو حكوسو كرديان بس كويمي هذي ورجالي إن شاء الله ينادي حلبانك أنا وحكوسو كردين دونتان تسالة أركتي يفكر بمحلها كوسو كردين دونتان وحنو مهدي عليا السوق كله حفيز كأبول كدوضها وقابل سمعتك مدحيس جود iyo hawlmadana la shaqeeya oo iyagu suurtagal caawa madasha quruxda badan qaabaysan diyaarsan sharfan inay nagu soo boqoraan oo caawa inoo hirgeliyaan xildhibaankuna inoo yimaado waxaan sidoo kale mahad celinayaa xarunta Borma Innovation Hub oo runtii u taagan ka door dhalinyar ahaan inay barnaamijyada ku qabsadaan doodaha lagu qabsado waxaan u mahad celinayaa si guud madaxa guud ee xarunta anigoo ku hadlaya madaxa xafiiska abaabulka doodaha cilmiyeysan kulay toole wax warbixin wali niga siiyay macadka hitaad waxa uu branchiyo kala duwan ku leeyahay dalka iyo dibadiisaba labadaba waa uu ku leeyahay kulay toole dhalinyar isku tagtayna wuxuun bay bedeshaa waxna way soo kordhisaa كل تولى ما ها برنامج نوجه ري قبلنا لكن وكي يوجه ري كسر قيب قشان كل وتولى وكي يوجه ري بور ما قبلنا لكن ما ها أنا كي نوجه ري قبلنا كل برنامج بدل ما سوق قبلني إن شاء الله دي لها هذا كل تولى وان إسقي من دورنا برنامج يكون كقيمة بدن يكون كقرح بدن إن شاء الله كل تولى مع تهيتان نوح وتاجي هاي وحقبتك ضلك يضدك بقى. لو واحد وش قيسها ضدك محي هذين بلشة جارهان هو ينكو كله مترددنا ما كان محي هذين عد مقشل تردين واحد مقشة واحد ركتان ترددنا لو قبنا أرضي ترددنا لو قبر دالنير لكن هتر أنت أوي كبر على نتاي هتر واحد حتى أي جاري هرنا وقبته ماموين كفيليج كشوجا ترددنا وقبتها ماموين كمجالات تشورو ترددنا وقبتها مركز واحد يكون ذا لكن بقول كي بس عشان حوجة صارته دالنيرتا أدي أدبن نقوم هذا علني دالنيرتا كسوق قيب قشي حرنتان كل وحوي وحنقول وقول طلقني isla barnaamijkan oo kale in barnaamijyadan oo kale aan ku qabano in la gaaray waqtigii waxbarashadii la soo bartay la fulin lahaa waqtigii implementation in waqtigii ma taqaana qofku markuu wax ka jaamacadda u dhameeyo isagu uu la iman lahaa fikrad ama xirfad uu ku ma taqaana ku hal abuuri karo qof kastuu ilaahay abuuray waxaan ognahay inuu hibo leeyahay waxa ku talagalnay marka hibadiisii bal inuu ku shaqo tago instead of qof kale u shaqeyn lahaa in marka halkan aan ku baahino ama ma taqaana laga helo ay noqoto goobtii ubadaxaadka ee horumarka dhalinyarta maadaama aynu ognahay dhalinyartu in ay tahay u bixii waxa weeyaan dalka iyo waxa weeyaan mustaqbalkii wadanka waxaan rabnaa goobtan inay noqoto goobtii laga heli lahaa waxa weeyaan wasiirada berri agaasimayaasha dadka isbedelka togan ee toosan
ee waxa weeyaan ifaya inoo sameyn lahaa saas aawadeed in badan baad fadhideen hadalkan idinku koob ma taqaanaa waan soo koobayaa xaruntu xaruntiinii intay daawanaysa inta ma taqaanaa ka soo qayb gashaba xildhibaankan horta wuxuu noqday xildhibaankii u horeeyay xildhibaan Bashiir Xuseen Xirsi ee bulshada hor yimaada ee isagu maanta gartay inuu dhalinyarta waliba mustaqbalka soo socda inuu wax ku celiyo hadii alla yiraahdo ayuu gartay marka taas waxay tahay faa'iidooyin xildhibaanadii kale uu horta dheer yahay marka insha Allah bin bilaa kariim arintaas waxay idin muujinaysaa inuu yahay nin dhiiri gelinaya dhalinyarada adduunyadana waxaad arkaysaan horta sida codkaba markay noqoto xildhibaanada tartamaya codka waxa dhiiba inta badan waa haweenka iyo dhalinyarada way bulshada adduunyada imka waxa weeyaan majority-ga ayaa xalada dhalinyar baa u badan ba boqolkiiba 70 tahay ama hadii ay tahay 5 iyo 60 ba dadka waayeelka waxa laga yaabaa mortality rate dadku badankiisu imka waa 6 ma dhaafaan laakiin dhalinyartu ma inta badan soo hadha marka arintaas waxay tahay faa'iido badan inuu dhalinyarta hadii la hado dhiiri geliyo sada socotaana adduunyadan kulay anaga ninkan xillisan inaad shaqo badan heshaan hadii alla yiraahdo marka xildhibaanka waxaan kala shaqeyn doonaa oo idinku kala shaqeyn doontaan inuu ku soo kordhiyo wax cusub hadii la hado bulshada sidoo kale waxa kale oo caqabado badan oo waxbarashada hortaagan waxa kamid ah marka dhalinyartu ay qalin jabiyaan shaqo helidii imka Hargeysa oo kale marka tageysaan magaalada Hargeysa caasimadda way noqotay xitaa dhalinyarta reer Boorama meel ay habeenkii u hoydaan ma helaan markay application geeyaan application wuxuu noqonayaa process dheer waa inuu ama wasiir ama xildhibaan ama qof kale oo caaqil dabad ka riixa taaliftigeedu waxa weyn insha Allah waxbuu ka qaban doonaayo dad wuxuu fudayn doonaa in applicationada noocaas oo kale dadka aqoontiisa lagu xuso laakiin aan graduation iyo qolqolo aan lagu xulan hadii ilaahay raado bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaahi al-ashrafil mursaliin على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عاو بشو تهي صدح لباتن كيمي لبكن يوكوبي لباتن وحا برنامجك معدك هيتد أو سواء بابولي إنه مرتيا حلبان بشير حسين حرسي أو مرشح ترتمي قولها وكيل لذا الصوماليلان كانت ترتمي قبل كأوضل أستانتي سنة أي تهي كاري أي عاو وحو دور بدي إنه كدي ونادو حلبان نذا كلا قولها وكيل لذا كل الله لمايا أو هري ما دميريها هنكيسة iyo maxaan raahdaa systemkiisa siyaasadeed oo inoo sheego oo inoo bandhigo horta xildhibaan kolka hore waxaan ku oran lahaa ku soo dhawow falyatafadal mashkuuran bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxa ka salaamaya dhalinyarta qaaliga ee halkan noo fadhida maanta ee ka soo qayb gashay maxadkan Khoon Institute oo xafladan aan caawaleen hayna casuumay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wax kale oo mahadnaqayaa Maxamed Amiin iyo dhalinyarta kale maamulka kula jirta aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaa jirta tabasho badan oo ay ka cabanayaan dadku baahiyaha asaasiga inaanay bulshada inta badan ka aanay helin khaasatan waliba gobolka Awdaleed ka sharaxan tahay marka maxaa kaaga qorshaysan baahiyaha asaasiga inaad wax ka qabato baahiyaha asaasiga ee ay community-gu leeyihiin ama wadan leeyahayna waa wax muddo dheer dhismo weeyaan wax maalin kasta lagu dhiso maaha muddo ay qaadataa waxaana ku xiran tahay dhaqaalaha wadankaasi uu leeyahay iyo awoodda uu leeyahay Somaliland waa la socotaan haddii budgetkeyga la eego yani waxaan ka hadlaya guud ahaan general horta marka hore inaan sharaxo wadanku siduu yahay wax uu qaban karo Somaliland guud ahaan waxa dhaqaalaheegu ama budgetkeygu waa 300 milyan meelaha weeyaan 300 milyan anaga xagga Mareykanka markaan joogno hal high school ayaa ka barta badan wadanka 300 milyan yani oo ay ku jirto nabadgelyadii ay ku jirto ciidamadii ay ku jirto booliskii ay ku jirto waxyaabo badan oo kale boqolkiiba 80 ka badan ba budgetka dawladda ku baxa xagga security-ga iyo nabadgelyada waan waxyaabo loo baahan yahay Soomaaliland maanta ay nabadgelyadu ay ku sugan tahay laakiin haddana marnaba lama iloobi karo oo lama oran karo excuse laga badhin karo intaas oo dhammaan sameeynayo horumarkii aan ka aragnaa lama oran karo dawladda ayay saaran tahay in la timaado vision ay dadka wax ugu qabato waay qofku markuu siyaasiga yahay wuxuu ku fikiraa waa inuu ku fikiro weeyaan uu siyaasi ma noqon leeyahay dadka waa inuu la yimaado vision dhibaatada aynu ka sheekeynano wadanka saarta wadamada maanta la ilaa wadamada hore u maray rag ba ka saaray oo vision la yimiday oo wadankii ka shaqeeyay oo system abuuray oo systemkii develop gareeyay kabacdi ay ku sameysmaan ku noqdeen wadamada hore u maray inagana waxa la doonayaa in vision noocaas oo la nimaado
gobolka awdal waa run baahiyooyin badan baa ka jira waxyaabaha ugu daran ee gobolka awdal ka jira waxaa ka mid ah dhinaca wadooyinka gobolka awdal waa gobolka kalaate ee highwaygiisa ku yaala uu yahay inagu dariiqa baan highway u naqaanaa kan isku xidha ilaa Hargeysa waa 30 kilomitir oo highway uu leeyahay gobolka dhani وجس كوالله كلام دني أيليه قاربالة دور بقول كيلومتر قاربالة تصمم مركا هرمركا يو لقالها وطن كانوا حدور وين كله قبل كيسكو سعود كيس يو هوها إيش قيدس مركا دباسة ولا دباسة تهاجم ويان وحيابها الدوين وحكا قبته وحكا مذا إن الدوين قبل كأفضل وحبنا لقى قبته وحيابها كله هوها إنه ومد لو ذا نصو مالنا وحكمدا إن عافماتك وحلقة قبته وحكمدا إن وحلقة قبته محوها وحبرشدا ما توضع صعوتانو وحبرشدا سوماليلاند وبرايفت بس بقول كيف سيدات أرض هذين كبنين واحد كان سكولة برايفتا العقد تلاقي هذا والعقد هذا بدن ويان كلام مستعان العقد أنا قف شقالها العقد وقاطع يبقى لو يقول دقالها وبحنا يسمعها aad bay kala duwan marka dawladdu qudheeda waxa la doonayaa in la timaado barnaamij ay ku kafar gareynayso dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo muxuu ahaa waxyaabo kale asaasiga sida daraadeed annagu waxaan nahay parliamentarian baan nahay waxa weeyaan parliamentarian kuna waa sharci dejiyaal weeyaan shaqo gaar ay leeyihiin laakiin baarlamaanku wuxuu ka mid yahay institutionska fikradu ka soo abuurmaan sida waddanka loo horumarinayo fikradaha ka soo abuurma marka waxaan rabnaa anagu inaan fikrado badan oo waddanka lagu horumarinayo aanu dawladda gelino oo dawladda ka dhaadhicino khaasatan anoo maanta ka tirsan xisbiga xaakimka ah waxaan chance u haysanaa badan inaan waxyaabo badan ka dhaadhicino dawladda oo amuuraha aan sheegano aan wax badan ka qabano waxaa tahay murashax u tartamaya golaha wakiilada waxaa kula tartamaya murashaxiin kale oo golaha wakiilada ee gobolka Awdal waxaa jira murashaxiin kale oo iyagu maxaa la yiraahdaa xildhibaanadii hore u sii fadhiyay oo la doortay 2005kii maantana sanad ahaan fadhiyo 17 ama 17 sano fadhiya ma filaysaa inaad ka duwanaan doonto xildhibaanada hore u sii fadhiyay golaha baarlamaanka haddii jawaabtaadu haa tahay maxaa ku qorshaysan oo ajenda yani ku qorshaysan in aad kaga duwanaato waa sax weeyaan xildhibaanadii anaga naga horeeyay horta muddo dheer bay joogeen baarlamaanka waana muddo aad u dheer dhibaatooyin lagu keeni karto waddankeena oo yani dimuqraadiyadda iyo systemka aan doonayno ee transparentka ah wax u dhimaysa xildhibaanada kale cusub ee walaalaha ay hadda aan wada galayno iyaga hadda waxba ka sheegi maayo insha Allah khayr baan u rajeynayaa inaynu gacmaha isqabsano oo aan wada shaqeyn doono aan ka wada shaqeyn doono horumarka waxa kale iyadana qudheedu aan ballan qaadayaa in aanu had iyo jeer aanu ka baxno barnaamijka xisbiyada xisbi kale u eriyado waxaan rabnaa inaan noqono dad afkaarta iyo horumarka waddanka eega oo eega danta guud ilaaliya noqon doona insha Allah hadii la yiraahdo waxaan noqon doonaa xildhibaanada mucaaradka oo kale hadii ay noo keenaan barnaamij fiican oo shaqeynaya inaanu barnaamijkaanu diidin oo ku diidin mucaarad buu ka yimid aanu qaadano annaguna markaanu barnaamijka waddanka qiimo u leh aanu keeno annaguna ay naga qaataan oo saaxiibtinimo iyo wada shaqeyn joogto aan wada yeelano ayaan rajeynaya kuwaas waa murashaxiinta cusub murashax muxuu ahaa baarlamaankii hore ee muddada dheer joogay horta waa baarlamaankii inoogu horreeyeen doorano oo yani halkaas waxay ka caddahay dadkeenu inay yihiin weli aan nahay waddan bilowa maadaama uu yahay baarlamaankii ugu horreeyeen dooranay dee duruufo badan oo waddankii jirana way jireen oo had iyo jeer doorashooyinka dib u dhigayay waxaa jirtay amuuro nabadgelyo ay jirtay waxaa jiray amuuro abaaraha mararka qaarkood jiray waxaa jiray amuuro siyaasi ay jirtay marka waqtiyada qaarkood aan la qaban karin doorashooyinka oo haddii la qabto ay ka dhalanayso arrintaa hore ka xun waxaa jiray dhaliilo ay yeelanayaan xukuumadihii soo maray oo dhan oo yani 15 years yani 17 years waa waqti aad u dheer weeyaan dhaliilahaasina waa mid la wadaago ka soo bilaabmasa ilaa waqtigii ay doorashadu dhiigo noqotay ilaa imika laakiin nasiib wanaag maanta ayay noo suurto gashay inaynu bedelno
hawl badanna way soo qabteen oo de sharciyo badan maanta wadanka lagu xukumo ayay keeneen waxyaabo badan way ka dhinaayeenoo aan qaban waxyaabaha ugu ceebta ugu badan lahaayeen waxay ahayd waqtiga dheer ay joogeen dadkeenu waxay ku eedeyn jireen inay iyagu ka dambeyn jireen hal jeer muddo korsiga oo muddo kororsi badan ay u ololeyn jireen bay ku eedeyn jireen taana idinka ay diideenayaan sabab aragtaan laakiin kulay duruufahooga gaarka ay lahaayeen qofkuna inuu hadii jeer qof ka horeeyo aan antuun maaha anu waxaan laakiin jecelahay in waxa anagu aan qabanano aad nagula xisaabtantaan taasaana muhiima oo aan ka gudubno wixii hore waxyaabahan kaga duwanaan doona anagu waxaa ka mid aan isleenahay sidaan horeba kugu sheegayey kulley waxaanu la iman doonaa aragtiyo baan la iman doonaa waxaa ka mid a aragtiyadaan la iman dooneen hadda aada ugu fikirano waddankeena boqolkiiba 70 waa dhalinyaro dhalinyartan waxay u baahan tahay in shaqo loo abuuro shaqo abuurkana wadamada adduunka oo dhan marka la eego private sector-ka shaqada abuura boqolkiiba 90 wadamadan European-ka ama Mareykanka oo kale boqolkiiba 90 ama 80 shaqooyinka dadku ka shaqeeyaan shirkadaha private-ka ay ka helaan dawladdu boqolkiiba 10 wadamada qaarkood ba ilaa 20 la yiraahdaa ay dawladdu shaqo siisaa laakiin private-ka shaqada ayaa abuura oo sameeya marka anagu waxyaabaha aanu ku fikirano inaan sameeyno waxa kamid ah inaanu dadkeena private-ka ee ganacsiyada leh ee service-ka sameeya wax soo saara in la dhiirigeliyo oo loo sameeyo system ay ku abuuri karaan shaqaale fara badan oo ay wadanka muxuu ahaa ay dhalinyarta shaqo ka hesho waxa kale oo aanu insha Allah ka shaqeyn doonaa in shaqaalaha laftiisa aanu xuquuqdooda ilaalino oo qofka shaqaalaha ah markuu qof u shaqeynayo employer oo shaqo siiyay inaan labadooda xuquuqdooda kala ilaalino oo qofka shaqaalena xuquuqdu leeyahay la ilaaliyo qofka kale ee loo shaqeynayna xuquuqdiisa la ilaaliyo ayaan sharciyo noocaas aanu keeni doonaa waxaanu dawladda aanu ka dhaadhicin doonaa inay u abuurto system dadka muxuu ahaa ganacsatada ah si qofkii ganacsada shaqo uu abuuro waa inuu helo dhaqaale iyo helo dhaqaalahan muxuu keenayaa waa in ay dawladdu ka caawiso oo qofkii lacag la siiyo uu ku abuuro shaqada lagula xisaabtamo saas ay ku timaadaa waxyaabaha kale aan doonno waxaa ka mid ah in masalan muxuu ahaa xoolaheena kale Soomaaliland dhaqaalaha ugu badan wuxuu ka soo galaa xoolaha ilaa boqolkiiba 30 ayaa dhaqaalaha Soomaaliland waxay ka soo baxaan xoolaha xoolihii Soomaaliland maanta dhibaato badan baa haysata xoolaheeni ma helaan dhaqaalaheeni inoogu weynaa meeshii naga soo galiyay daryeelkii muxuu ahaa u baahnaa ma haystaan xoolaheena oo dhan ee dhaqaalaheena boqolkiiba 30 soo saaray waxay ku xidhan yihiin 2 bilood oo roobku inaga raago sidii bariga kale 2 bilood oo roobku inaga raago xoolo dhan ka shabeeyaan dhaqaalahaagii oo dhan boqolkiiba 30 ayaa burburaya marka waxyaabaha hal jeer ku fikirna waxa kamid ah in xoolaha la daryeelo waxyaabaha xoolaha loo daryeelo waxa kamid ah in xoolaha systemka qadiimka aanu ku isticmaalno wax laga bedelo oo xoolaha la fariisiyo oo xoolaha biyo loo helo oo xoolaha calaf loo helo oo haddii uu roobku inaga raagana muddo dheer la kofar garan karo hadii sanado kale raashinkooda loo kaydiyo xoolaha si aanu dhaqaalaheena inooga burburin waxa kale oo kamid ah waxyaabaha aanu dhaalinayno caafimaadka bulshadu marka ay caafimaad qabto ay dhaqaale abuurtaa in caafimaadkooda la ilaaliyo oo dadkeenu ay helaan caafimaad oo marka madgano qofku xanuunsado meel iska duubay karo helo innagana waxyaabaha iminka in haysto waxa kamid ah dhibaatooyinka hadda in haysto waxa kamid ah xanuunada inagu had jeer dadkeena u jiifaan dhakhtaradeenna yaala ama guryaha yaala marka dhakhtar loo waayo waxaanno laga hortagi karo oo hadii qofku midalan sonkorta oo kale ku dhacdo oo muddo dheer haysto qofkii si fiican looga dawan waayo ama si fiican loo ilaalin kari waayo complications ay keento waxa kamid ah qofka inay kaliyo fadhiistaan waxa kamid ah inay muxuu ahaa kaliyo fadhiistaan waxa kamid ah inay wadnuhu wax ka gaaraan meelo badan bay qofkii bilaad marka qofkii intaanu heer ka gaarin in laga hortago oo dawo fiican dhaqaatiir fiican qofku loo sameeyo ayaa la doonayaa oo barnaamijkan primary care kala yiraahdo MCH-du ka mid yihiin
dhallaanka iyo hooyada lagu dhaqaaleeyo primary care kale oo dadka caadiga ay tegi karaan oo la baari karo haddii xanuun chronic helo early la ogaado ayaa loo baahan yahay waxyaabahaas oo dhan baan insha Allah yaanu soo barbiis karin doonaa waan mudane xildhibaan Bashiir Xuseen Xirsi waxaa tahay murashax inta badan kaana marka doorasho noocan oo kale la gelayo ama doorasho la gelayo wadankeena waa dimuqraadi waxaa codka laga doonaa waa shicibka inta badan ka shicibku waxay ku doonaan markay doorashadii ay doortaan qofka ay rabeen ama shakhsiga ay rabeen markay codkoodii ugu ridaan cabashada badan ay soo celiyaan waxa weeye inay ayagu yihiin salaan ama kursiga lagu gaarayo dan adiga markaa maxaa kaaga qorshaysan la tashiga iyo la kulanka shicibkii ku soo doortay waa su'aal fiican weeyaan lafteedu waxa weeyaan waa run weeyaan qofka maanta marka aan sharaxanahay u sharaxanay golaha cidda aan ku xidhanahay ee aan codka ka doonayo ee booska aan doonayo i gaarsiin karta ama i diidi karta waa shacabka weeyaan marka horta waa in taa marka hore ogaadaa inaan awood aanu lahayn shacabka ay awood leeyihiin marka shacabka laftooduna waa inay ogaadaan in marka aniga ay booska i geeyaan insha Allah way heli doonaan aan musharax u noqdo ama aan xildhibaan buuxa u noqdo inay ila xisaabtamaan waayo aanu iyagaan u shaqeeyaa ma yihiin iska shaqaysanaya ma yihiin intuu awoodii hore iskaga tegi kara ma aha saada socotaan baarlamaanka marka la joogo waxay u yeedhaan wasiirada oo wasiirkii beeraha maanta loo yeeray oo baarlamaanku su'aal weydiiyay marka iyaga marka soo bay weydiinayaan waxbay dareemeen waxbay arkeen anu waxaan jecelahay dadkaygu in marka ay dareemaan inaan dariiqii ka baxay oo aan madana shaqadii ay ku talagaleen aan u qaban waayo in ay yeedhaan sida baarlamaanka aniguna aan u dhagoonolaadon u imaado waxa kale oo iyadana aan dadka u ballan qaadaya in anigu kulli baarlamaanka Soomaaliland wuxuu joogaa Hargeysa in magaalada Buurama iyo magaalooyinka kale aan ku leeyahay muxuu ahaa taageerashada aan xafiis ka furi doono xafiiskaas uu noqon doono xafiis cabashooyinka lagu soo gudbin doono xafiis aan bulshada ku wada xiriir doono xafiis yani aniguna aan codkayga soo marinayo dadkuna ay soo mariyaan mudana codkooda iyo baahiyooyinkooda taas aan ballan qaadaya oo waxaan noqon doonaa ku soo noqonaya waxa kale oo iyadana meesha ku jirta de kulay ninku marka su'aalaha kala weydiinayo waxa uu aaminsan yahay runtii baan u sheegaa aanu maanta marka wadanka iimanayay kulay baahi aanu qabay in wadanka ka shaqeysto oo aan baarlamaanka tawgiimay hayn sidaan marka hore sheegay wax ay keentay in wadanka wax ka bedelo wadanka dadka wax u qabto dinde fishankiisu marka hore caynka ahaa way adag tahay sidoo marka dadka uga goosto aan waxaan rabaa kulay taariikhdu way sheegi doontaa inaan noqon doono nin community-ga ku xidhan goor kasta la socda step by step la socda khaasatan dhalinyarada oo ah xoogga kala tii laga bedeli karo bulshooyinkeena ayaan ku xidhnaan doonaa aad baad u mahadsan tahay su'aasha kale waxay ku oranaysaa kulli Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa dheriga waxa karka ka keena waa kuleylka bay yiraahdaan adiga markaasi ma jirtaa mabaadi iyo ujeedooyin siyaasadeed oo karka yani habka saaxadda siyaasadda kugu soo dhex tuuray oo ku soo galiyay oo ku qorshaysan ma jirtaa ha way jirtaa oo de wax jawaabaha hore ku jirtay qofka insaanku kulay wuxuu la nool yahay bulsho dad buu ku dhex nool yahay anagu markii aan ka maqnayn xitaa in dibadda ku joognay inta badan dadka aan la xiriirno maalin kasta ka war haynay wararkooda aan dhageysanay ee aan la noolnahay waa wadankeena weeyaan dibadda kulay waan shaqaysanaa meelaan joognaa laakiin siyaasadda weyn ee hogaamisa nolosheeda hogaamisa ama wadankeena wax ka qabsano nagu soo hogaamisa wadankii baan hada jeer aad ula soconaa sidaa markii hore ku sheegay adiguna aad wariyay sheegtay wadankeena dhibaatooyin badan baa ka taagan oo saan hadda ka sheekeynaa dhaqaalihii waa liitaa caafimaadkii ma dhammaystirna waxyaabo badan baan waxbarashadeennii wada ogtaakay marayso marka inaan waxyaabaha aasaasiga oo dhan wax ka bedelno ayaa muxuu ahaa nagu kalifay inaan maanta aan wax ka imaado waxa kaloo iyada jirta
guud ahaan waddanka caynkaasaan aaminsanahay khaasatan gobolka awdal oo kale waxaan hadda jeer maqli jiray cabashooyin fara badan oo ka taagan gobolka oo ama xagga horumarka ah ama xagga saami qaybsiga cabashooyin badan baa ka jira cabashooyin badanna ficlan way jiraan oo wax badan baa ka jira xagga horumarka horumar la'aan baa jirta waxaa saamiga dadku dhibaato badan bay ka tirsanayaan xalkiisu laakiin de wuxuu u baahan yahay waqti iyo nidaam buu u baahan yahay in waxyaabahaas oo dhan aan wax ka qabanno ayaan u imiday cabashooyinka aad u badan yihiin cabashooyinka gobolka yaallayna daboolna iyo kuwa waddanka yaallaba ayaan u imidaan xabaane aad baad u mahadsan tahay kulley waxa inta badanka ah maadaama aad waxaad ka sharaxantahay xisbil xaakimkii kulmiyaad ka sharaxantahay run ahaantii inta badanka ah mucaaridkuna waxay ku andacoodaan oo yidhaahdaan xildhibaanada golaha baarlamanka fadhiya waa halka ugu dambaysa go'aanku ka yimaado inta badanka waxay yidhaahdaan waaxdii fulinta iyo waaxdii sharci dejinta waxay u carbuuran yihiin bay yidhaahdaan yacni xukuumadda marka xildhibaan haddii aad ku guulaysato ma kala saari doontaa waaxda fulinta iyo waaxda sharci dejinta xeerka idin dhexeeya ma kala saari doontaa amiino waxa weeyaan horta waaxda fulinta iyo waaxda sharci dejinta horta waa laba qaybood oo kala duwanba marka horeba institutionkeena iyo de sharciyadan way sheegayaan waa laba qaybood oo kala duwan laakiin mararka qaarkood bay dadku waxay yidhaahdaan waa isdhex galaan oo aba xiriir ka dhexeeya sidii laga filayaan ahayn waayo baarlamaanka waxaa la doonayaa inuu check and balance ku sameeyo xukuumadda waxyaaba badan uu jeegareeyo waa run weeyaan way jirtaa waxaana ku xidhan tahay waddankeenu wuxuu leeyahay xisbiyuu leeyahay xisbi kastaba wuxuu ku yeelan doonaa baarlamaanka xildhibaano matala xisbi kasta wuxuu leeyahay ideology uu doonayo inuu waddanka ku hogaamiyo oo u dabaqo أنا واحد كاتب سنة مانت حسب كلمية نوها حاكم حسب قاس ده فيشن بولي هاي جدوين بولي هاي وحبو قمانا يا سلام مركو يدي شيء مركو عن وحياه برنامج نوع عاصة عنه كأنه ولا لا هاي كلا نقوله كذا محوها برلمان كي حسب ذلك سوي كذا ونلو دودي كرنا دود فوز بنقلي كرنا waxbaan soo dhiraan karnaa meel baan isku keenay karnaa waa run weeyaan saa u shaqeeyaan doonaya ku oran maayo waan marsiinina wax kasta sharci kastoon rabno inaan marsiino baarlamaanka ma rabno inaan marsiino wax rabnaa in uu noqdo sharci aan heshiis ku nahay majority-ga inta badan oo aan xukuumad ahaan aan ku marin baarlamaanka dawaana kala qaybsan yihiinoo marka maad galaan baarlamaanka la isku yimaado دي دولة أجندة البيئة هذا هيدون سينو فلسو حسبية المعارض كنا قارنا بكون راعي قارنا بكاغا سوهر جيسان مركي كاغا سوهر جيسان كل أغلبية بالقضايا أغلبية عدة وبطون با شرعي قادتها لكن وحن كو عضينا يا إن وحيابها ودك الدنتا هو دنتا جود بكان يلعلنا إن حتى برنامج أي دولة وضعتها أنك جوهر ما كنا أنا جو حسبية محوها حاكم كيا عيان مكوب بالقضايا وهدانو dareerno sharci ay dawladdu wadato oo ka hor imanaya danta guud ee wadanka ama dadka shacabka hor imanaya in ka hor imaadno xaq baan u leenahay oo waxaan siiyay muxuu constitution kan siiyay waa ka hor iman doona nimanka kale walaalaha ee muxuu mucaarad ku jirana iyagana wala tashanaayo wixii maad garan tala wadaag ayaan la yeelan doonaa labada institutionna iskirinta la sheegay waxa weeyaan xukuumadda baa yar xoog badan weeyaan تاوان ilaalin doona qof kasta waan ilaalin doona insha Allah hadii la yiraahdo xildhibaane waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena soo gaarnay kulley bulsho badan wayna hor fadhidaa wayna daawanaysaa wiilal iyo gabdhabala xagga miidiyahana waa la naga daawanayaa baraha bulshada marka maxaad waxaan fursad ku siin doonaa kelmad baan ku siin doonaa marka maxaad ka codsan lahayd mahad celin yani system horta marka hore waan aad baan idinka mahadnaqayaa sida sharafta leh ee igu casuumteen institutionkiina waxa kale oo mahadnaqayaa dhalinyarta ka soo qayb gashay barnaamijkan waa dhalinyar aad u da'yar ana ka muuqato nashaad fara badan waan salaamayaa waxaan insha Allah idin ballan qaadi doonaa inaan noqon markii ugu dambeysay halkan marka aad baxataanba hadii yeeli doontaan waxa kale oo idin noqon doona in idin xog waramo
waayo dadka imka wax saar sheegaysan marka horeba dad badan baa jiro xukuumadda gal aan dib ugu soo noqon oo marka dambe marka gaab uu dhaco wararkii ay muddo kala maqnaadaan waa la kala shakiyaa oo waa la saambaareeyaa waxaan jeclaan doonaa inaan noqdo qof idin xog warrama meelaha aad ka qabtaan dhaliilaha ama meelaha aad ka shakisantihiin oo kale xildhibaan ma jirtaa maanta waxaad ugu baahi badan tahay ood ka codsanayso bulshada inta halkan joogta iyo inta kaa daawanaysaba miidiyaha waxaan ka mid ahay waqtiyada loogu baahi badan yahay bulshada oo qofka insaanku ma garan uu ugu baahi badan yahay waxaan ka codsanayaa dhalinyarta in iyaga oo aan ixtiraamiyo ra'yigooga weliba ay tahay markii ugu horeysay aan kulanno qofkuna uu baahan yahay inuu ogaado fishankaaga iyo waxa tahay oo waqti qulis u baahan yahay qofku in haddana aan waqti siinay weliba si xaqsoora ay ideadeeda u eegaan backgroundkayga raadsadaan marka haddii ay ugu qancaan in codkooga ay siiyaan oo aan codkoogaan u baahanay maanta waxyaabaha aan ka sheekeynayna aan leenahay waa weyn waddankeena majorka u ah in wax ka qabanno aan isku nimaadno ayaan doonayaa marka baahideeda ugu weyn maanta waxa weeyaan in codka la siiyo insha Allah hadii la helo